سلاميا سترك يا كو إلاليه سادة القرحونيو سناني عدالة بان سادة القرحونيو سناني عدالة بان كما ودا سوغيناي سلديقا قوى شرفي سهانكا قوى قولي سعدالكا قوى نبدي سفركا قوى قيري يسماد برواقادي markaan sameeynay 2015 anigu waxaan ku mid ahaa dadkii hormuudka ka ahaa in runtii maamuladii kala taagnaa barigaas in la isu keeno oo ay runtii barigaas dadkii madaxda ahaa oo madaxweyne uu nagala fadhiyo Suldaan Cabdikuus uu nagala fadhiyo halkan caawa oo nooga mahadcelinayno tanaasulaadkii ay muujiyeen madaxweyne Baasleex madaxweyne Cabdi Qaybti iyo raggii kale oo dhan oo ahlu sunna ku jirtay iyo maamuladii iyo qabaa'ilkii isku yimid runtii tanaasul ayay runtii ku sameeyeen jagooyinkoodii ayay ka tageen xeelkoodii ayay ka tageen maamuladoodii iyo qof walbaba hammi uu qabay iyo ham uu lahaa ayuu inta tanaasulkii sameeyey ayuu galmudug sidaas ayaa lagu dhisay waxaa rabnaa galmudugta cusub ee hadda la dhisayo ee hadda loo fadhiyo in tanaasulkaas lagu sameeyo waxaan ka warqabaa in dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka ahlu sunna wal jamaaca oo hore ugu biiray dowladda gobolka galmudug inay hadda ku jiraan wada hadal iyo dib u heshiisiin ayaga dhexdooda ah madmadow soo kala dhaxkala waxaan dhiirigelinaynaa fariin u diraynaa ama magaciina ku hadlayo iyo magaciina shakhsi ahba inay runtii soo dhameeyaan khilaafkaas khilaafku waarigaagii galmudug sidaad sheegayseen 4 sano khasaaraha soo martay 4 sano fadhiidaha soo martay waxaan rabnaa 4 sano cusub oo soo socota inaan dardar ku bilowno waxaan rabnaa inaan ku bilowno si galmudug ay la qabsanayso dowlad goboleedyadii ka tegey dhanka maamulka maaliyadda dhanka maamulka amniga dhanka maamulka dowladaha hoose dhanka dib u heshiisiinta dhanka horumarka dhisidda maxaa la kaabayaasha dhaqaalaha hadday tahay wadooyin hadday tahay airporro hadday tahay maxaa la dekada hobyo wada sugayno iyo waxyaalaha kale aan u baahannahay in dhaqaalaha galmudug ay u noqoto kaabayaasha dhaqaalaha sida beeraha xoolaha kalluumaysiga macdanta shidaalka ilaahay khayraadka oo ku banaystay galmudug siday ula soo baxdo waxaan u baahannahay hadda intii is tanaasulkii 5 sano ka hor la sameeyey qaybta kale oo dhiman oo hadda maanta isku hor fadhiya dowladda federaalka iyo ahlu sunna wal jamaaca ayaduna inay la gartaan dadkooda faraaq dowladnimo la'aan ah ama dowladnimadii oo meesha ka baxday muddo sanad hadda muddo 7 bilood oo dowladda aan la haysan iyo wixii ka horreeyay dowladda ciifa jirtay intaas ka badan dadkaan ma sii dulqaadan karaan dowlad la'aan dadku waa dowlad ku nool amnigooday sugtaan laakiin waxay rabaan dowladda shaqay ka rabaan waxay ka rabaan ganacsi ka rabaan waxay ka rabaan inay horumar keentay ka rabaan waxay ka rabaan adeeg bulshada inay keentay ka rabaan waxay ka rabaan waxbarashadii caafimaadkii wadooyinkii wax walba oo maanta saakin aan soo arkay oo ayagu isku xilqaantay iyadoo dowlad maxaa la yidhahdaa saacidaysa aysan jirin saaka waxaa meesha ka eeday raggii aan u tegey waxaa isku tihiin wasaaraddii arrimaha gudaha iyo dowladdii hoose iyo waxay isku tihiin wasaaraddii howlaha guud iyo wasaaraddii maaliyadda iyo wasaaradda qorshaynta keligii isku tihiin waa guddiga intaas oo isku tashi iyo isgarowsiyo iyo boorka iska jaf lagu soo dhisay haddii dowladdu ay joogto oo beesha caalamku daba taagan tahay oo dadbixiyaashii jooga wixii la samayn lahaa waa garan kartid meeshaan dadka siday waxa ay qabsan lahaayeen kartida ay reer galmudug leeyihiin kalsoonida aan ku qabno qodobka ugu weyn oo number 1 iyo waa in la abuuro xasilooni siyaasadeed waana sida aad sheegteen qaybo fara badan oo ka mid ah maanta runtii markaan soo degay waxaan idhi reecaada wax badan ayay ogyihiin waa umulisan ku wax kale maahan waxaa iga muuqata markaad usmareeb tagto iyo dadka markay muqdisho aad tagto say galmudug uga hadlayaan waxay uga hadlayaan galmudug mustaqbalkay uga hadlayaan saa 5 sano ka hor uga hadlayseen laakiin adiga dad soo tijaabiyay galmudug aad tihiin waxay uga hadlayseen galmudug oo aan soo dhaafteen 4 sano oo kii aan soo aragno karo nooma laabataan leeyihin dadku ma fahamtaan idinlama oga in waxa la dhiso ay halaabi karaan idinlama oga walaalihii hadda jooga cabado ama walaalihii jooga usmareeb future-ka ka dhaba وين حقي يقولي وأفر سنة كورسة أهلين لكن إن دولة لك أفر سنة وصاد عفي أي ممكن دارا دعدي الدولة ويك أما ضعيفة أما ما يسميه هي هذه الدولة الانستيتيوشنز اللي يسميوها هي وأنا هنتي وحصور على كتير وأنا إذا لك أبغى أنا أقول كتير قفل بوها كان يمانا أفر سنة صوصة ويك انستيتيوشنز بحالي الآن
أما محل هذه الدولية ضعيف نقطة بعض ضعيف نقطة كلهم بالدستور ضعيف نقطة قرصور ضعيف نقطة هذا اللي إذا شرعية الشرعية ضعيف نقطة هذا مامور كمالية ضعيف نقطة يعني الدوليين واحد يسوي وحويا ما أنت حسلوني سياسات حسلوني سياسات وحويا معنيه وحويا سيدنا الله كذا يعني كم أنتوا حكوا بهمنا بلشوا هشيسة بلشوا هشيسة أو كل هشيسة وحي يسوع أفكاره على هذا كل هشيسة هرب كل هشيسة حتى كل سمرة على يسوع أفكار وقت بدنا الحديث وحيالي غير هذا من أنا هشيسين تقطع وحنا نقطع من الهشيسة هشيسة كذا على اليوم كروي كيش كوبيو كذا عين هي المفكرين NGO العقد مقالة ضدك أيها أرجو ذا الشيء أيها العقد الجيب ولا كم أحسن أيها فريستك بدل ما بنوضع كنت يشبري في الدين هل كاسي وحين كسر صار واحد أي رباك يصير وقرمان واحد رباك كيس كاسر قلنا بلا كرجال بلا كرجال إن رب يستقل مد أو كل تبغى كهاسة عشان تكون شيء سواء كاسر معنا هو كلام واحد رباك أنا سيد القرآن إلهه والنبي هو شيء طبع وأذيك تحدينا ما قبائل كأذين أذيك تحدينا سميست من ما سميست من ما ياشا قالوا كأن سميست leadership سميست ما يش اسمك أسمع حرب إن أبو شيد كتير معه ما هو بقول حبل أو ضد كين أحيي من إنه سميست ما يش أسمع هو وهذا أبو شيسين وياه وحنكلوا عن ناسيله كمان سيبت البشتين ده فحاجة على صواب أثني حتى إلهي وكنسي برواق في مال كلام حاجة sometimes كان بتقول كل نعمة لها نعمة نموين لا أمام مسائل لا عليها الضاقي يومش إنه على كذا سنة عليها مركز تو ورمضان وعلى كسرة كاس أي عليها وضع إن كل هذا إني وحصل ما كمان رضا بحلي له لو جبت النبضة إنه نبضونه الناس إن النبضونه النبضة لما عمل إيش كذا أوبريشن أو لما عمل نبضلينتا نبضيلالينتا هورتيجدا علاقة هورتيجدا وهو علاقة سافرنا كنت أنا كذا بيان أنت سبحان وهيسيسين الشعب والشرع يوحى أي كلام ما نقول وحاملين ما متضاد كقوة هذا هو ما واحد شعب الحين لكن واحد كده واحد هيسيس نجرب المامور ده لا واحد استيك معين إن كل يجين مامور كاس يسكين ويقول دخلهم احترام إن لا حليو أيضا سبتنا سيدنا حكمنا ذاك على ذاك وحكمنا ذاك على ذاك وحكمنا برشلونة فرد بلد أو كالدول أو ممكن ضاق قواعد تقاطع مسلمي ناس بحلول ديبي أيها ممكن وحنشوف أنا نفر يسوع دام بالحلول الموضوع أيها الله حلو وحياة كمان وحاسس أن الحوار بالحنو جينسا إن البرشة حسيران يدل حسيران عنه وحاكبر إنت الحوار ولي ضبطي أيها مستقبل واحد يستمتع حسيلوني سياسات غيبتك وآدم وحاجة سياسية وآدم وحاجة سياسة وحاكو دعا سياسة موشنا لسكتا وكيانا برلمانا بي أسكو دولا وحوالي لسكتا وكيانا يعني سياسية تستقع مرقوة ميل مرقوة نبي مرقوة وحويا وحيقو بانتا سياسية تنجيس كون تحيقو بانتا دستور كبير اندي بلوغولا حنفو دي الدستور لو دي رفرندا كو أنسيحية ودسر كبير إن شاء الله تعالى ودعيسا وحان ربعنا الدستور كبير أولاله رفرندا كو أنسيحية وكل من يوضع وشكوه سيدا رفرندا لو أنسيحية واقانا وحنشق قلقونا إن شاء الله تعالى وأنا واحد ونمسا واحد كانوا مهمة وآن ربعنا سمية لحظة بلوغ القوات وآن كبير عسدا وقلودين وحان ربعنا سمية كنت قدور شويك يكدوله يجلد البلاد محمد سمعنا ما دورين مردم به إن بيجسين حمد مكاجا ما دورين مردم وزارة المهم بلاه ترى إن كم تحت ما دورين ما دورين مردم به ما دورين مردم إن عيد عسكرنا كجسر حمد دورين ما دورين إن مالك الكريمة أنك أسحلك قضياتنا نوجو دخل كنا جو هشيس كنا سميسا كنا institutions كنا أو دولة كنا سميسا كنا ودينا الدورشان سميسا كنا أحزاب كنا سياسة نسدونا وحنا رباس لحدة بلوغ القوات بدك الدورشون يحدوده لما شيء وقتها دورشان الدولة ما سوقتها دورشان الأحزاب وقتها
doorashada maamulka galmudug oo dambe baarlamaankiisana uu qaban doonaa intaba waa ka balan qaaday galmudug dambe uma laaban doonto inuu odayaal ay soo xulaan ama markan isku soo laabado 4 sano kadib haddaan aniga ugu timaadaan waxaan idinka ballan qaadayaa in intaas ay maxaa la yidhaahdaa aan intaas ku soo dhamaystiri doono guddigana sanadkooda aan samayn doono dowlad hoose iyo dowlad deegaan iyo golo deegaan dambana waa lasoo dooran doonaa insha allahu tacala hadduu ilahay